السلام عليكم سو dhawaada akhyaarta weliba asxaabtaan jecelnahayo waa walaalkiina barqad oo maanta inay wada qisa dhaaftay tan maqan waxaan xitaa ku tilmaamay waxaan laga hubisaa haddii muuqaalkana like naga saartid asxaabtaadana la wadaag sidaasoo kale hadaad meesha ku cusubtahana gacmo furan kusoo dhowo halkan qisooyin kala jaada oo dunida dacaladeeda africa ilaa asia yurub xitaa waa tagnaahay marka haddii aa ku cusub tahay subscribe yartaa naga hilmaamin gacmo furan kusoo dhowo aan haddana gudaha u galno lets go. bilowga sheekadeenna waxay ku bilaabanaysaa xaafad yar oo lagu magacaabo Nakura. Waxaa ku noolay lamaanayaal la kala oran jiray Matthew iyo weliba Banita. Lamaanayaashan ay muddo ayay noolaayeen. Matthewna xaaskiisa waxba kama uusan qarin, xitaa exterior uu u sheegay inay isaga cayri awoodiis uga tagtay, taasoo iyada lagu magacaabi jiray Sonia. Inkastoo Banita haddana sheekaas ay maqasho, ugu dambeyntii ninkan way ku qanacday waxayna ogaatay nin rullow inuu yahay. kadibna sanad markii arrinkaasi kasoo wareegatay ayaa Banita waxay dhashay gabadh yar oo aad u qurux badan. Matthew ayaana ka codsay in saaxiibadiisii hor loogu magac daro oo Sonia loo bixiyo. Inkastoo markii hore ay Banita diiday, ugu dambeyntii way aqbashay inuu ku qanciyey. kadibna wuxuu bilaabay gabadhiisii wixii intaasi ka dambeeyey inuu kalkooliyo. sanad kale markay kasoo wareegatana Banita uur ayay qaaday. kadibna wiil qurux badan ayaa dhashay, waxaana loo bixiyey Daniel. wixii intaasi ka dambeeyey qoysku waxay ku noolaadeen nolol aad u qurux badan. Matthew gabadhii yartaheed ee Sonia aad buu u jeclaaday. wax walba u baahan yahayna isaga waa uu sii jiray. xitaa mar walba xaaskiisa ayuu soo wici jiray markuu shaqada joogay, isagoo xilligaas weydii jiray gabadha siday tahay. xitaa Banita waa ay la yaabtay sida ninkani gabadhan yarta uga taxadirayo. si kastaba haatee, xitaa waxa uu kula dhihi jiray markii ay weynaato qofnaha jeclaan. iyadana xilligaasi maadaama gabadh reedan ahayd kuma aysan diidin ee waa ay ka ballan qaaday. waqtiguna waa uu socday. 15 sano markii ay kasoo wareegatana gabadhii waa ay weynaatay. kadibna waxay bilowday wiilashii xaafadda inay raacraacdo, ay waqti la qaadato lana sheekaysto. laakiin arrinkaasi Matthew kuma uusan farxin. maalin ayuuna la kulmay gabadhiisii, wuxuuna ku yidhi gabadhaydii iimayl maanta ballantaa iga qaaday, taasoo ahayd adiga wiil inaan xiriir la samayn doonin. xitaa xiriirka aan la samaynaysid. kadibna waxay ku tiri aabba xilligaas waan yiraay, xitaa waxaan ballan qaada ma aqaanin, marka aab maxaan iga leexo. arrinkaasi kuma uusan farxin. Matthew xaaskiisa ayuuna arrinkii kala hadlay, isagoo ku yidhi waan ku barya gabadhaada ha joojiso wiilashaan ay loo dabarordayso, sababtoo aniga arrinkan uma aana begin. kadibna iyadu waxay tiri war iska daa, gabadhan waa yarta waqtigeeda iyo qaadanaysaa. arrinkaas laakiin ma uusan ku farxin ninkii Matthew ay. gabadhiisa ayuuna bilaabay cadaadis inuu saaro. iyadiina waxay ku tiri aab macaan, waxaan doonayaa inaan xorriyad ku noolaado, marka waxyaabahan raba ayaan samaynayaa. Matthew goorta uu gabadhiisa ka daalay arrinkaas aad buu uga carooday. sidaasoo kale gabadhii Sonia waxay bilowday asxaabtii inay la wadaagto cadaadiska dhanka guriga u imaanaya weliba aabaheeda. iyagana waxay dhaheen walaalay hore u socday marnaba isdhiibin. sidaasoo kale waxay la hadashay walaalkeeda Daniel, iyadoo u sheegtay dhibaatada uu aabbo ku hayo. laakiin isagana waxa uu ku yidhi walaashaydiyey, haddii aad doonaysay inaad ku noolaato nolol xorriyad leh, waa inaad adiga waxa aad rabtay aad raacdaa. wuxuuna sidaasoo kale ugu daray inuu ayada garabkeeda yahay. si kastaba haatee, maalmihii xiga arrinku faraha ayuu ka baxay, oo Matthew iyo weliba Sonia buuqooda wuu isku sayday. kadibna gabadhii Sonia habeenada ka mid a markuu aabaheed ku qayliyo guriga ayay ka carartay. waxayna go'aan ku gaartay inay guriga saaxiibadeed aado si ayada halkaas isaga soo joogto, jawina wuu soo bedelato. sidaasoo kale Banita waxay isku dayaysaa inay arrinka xaliso, laakiin waa ay ku guuldareysatay, sababtoo ay ugu wacnayd gabadhan aabaheed oo aad u adkay, murankiina badiyey. sidaa darteedna gabadhii waa iska baxday guriga saaxiibadeed iyana aaday. ninka Matthewna wuxuu ka cabsanayay si asaga extiisa hore ay ku samaysay inaydan sidaan oo kale ay ku dhacdo. maalin maalmaha ka mid ah guriga waxaa ku soo booqday wiil ay saaxiibo ahayn Sonia, isagoo xilligaas raadinaya. laakiin goorta uu guriga yimid meeshii wuxuu ku arkay Matthew ayaana bilaabay wiilkii inuu hanjabo, wuxuuna ku yidhi haddii mar dambe aan ku arko gabadheeda ogow wixii kugu dhacay adiga ayaa isku dhigay, mana ku agar karo. kadibna wiilku wuxuu ku yidhi okay, mar dambe uma arkaysid. 2 maalin markii arrinkaas ay kasoo wareegatay, Matthew wuu dul qaadan waayay maqnaanshaha gabadhiisa. kadibna go'aan wuxuu u gaaray guriga saaxiibadeed inuu soo booqdo. meeshaas ayuuna gabadhiisa ugu yimid. kadibna wuxuu bilaabay inuu la hadlo, isagoo ka raali geliyay wixii isagoo ku sameeyey weliba dhaqamadii xumaa isagoo kula kacay. isagoo xilligaas u sheegay inuu mar dambe kantarool iyada u saari doonin, gurigan ay ku soo laabato. Sonia goortii intaasi maqashay aabaheed waa ay rumaysatay, kadibna guriga ayay ku soo laabatay. wixii intaasi ka dambeeyey, Matthew wuxuu bilaabay gabadhii si wanaagsan inuu la dhaqmo, hadiyada uu u soo iibiyo, weliba si joogta ah uu suuqa u geeyo, wax walba u baahantaana awoodeeda u keeno. laakiin iyada arrinkaasi kuma aysan farxin, sababtoo mar walba suuqa ayuu geenayay alaab iyada u baahnayn ayuuna soo siinayay. kadibna maalin ayay hooyadu timid, waxayna ku tiri hooyo macaan waa ku baryaa bal la hadal, sababtoo maalmahan waa uu ka soo daraya wixiisana xad dhaaf waaye, hanti khasaarisna waa ay dhaafeen, marka la hadal. kadibna waxay tiri aniga ayaa la hadlay, iska daa gabadhaydiyey, tan kale aan kugu daray waxaan alaabtan wuxuu kugu gadayaa gabar oo adigina ku soo jiito. sidaasoo kale arrinkii waxay la wadaagtay walaalkeeda,
Intaa walaalkeed arrinkaas waa uga shakiyey wuxuuna isweydiinayey sababta habdhaqankiisa isugu beddelay weliba si degdeg ah haddii aan faraha badan oo soo gadayo. Iyadiina waxa uu ku yidhi walaalay garabka danyaa wax walbo gaal ka soo kordha adigana waxaan lagu siinayaa walaalay ha ka caban. Sidaasoo kale Daniel isaga laftarkiisa waa uu rabay hadiyahana in la siiyo dan walaashu waa ay ka cabanaysay. Sonyana walaalkeed ayay u mahadcelisay kadibna waa ay ka soo tagtay waxayna u timid habeenkii markii la gaaray aabbaheeda oo xilligaasi fadhiyey qolka fadhiga. Kadibna dhinaciisa ayay soo fadhiisatay neef ayayna qaadatay kadibna waxay tiri aab macaan waa kuu mahadcelinayaa waxaana doonayaa arrin yar inaan kala hadlo. Aabbihi oo xilligaas gabadhiisa soo eega ayaana ku yidhi waa maxay gabadhaydii ma wax dhib ayaa jira. Iyadana waxay bilowday wax walba inay u jiraado waxayna ku tiri aab macaan hadiidahan iyo weliba soo jiidashana ay siinaysa aad baan kaaga mahadcelinayaa laakiin waxaad u xad dhaaf tan kalena waxaan doonayaa aab macaan inay go'aankayga inaan ku socdo ee markaan ku baryaa kontaroolkan faraha badan iga daa. Goortii intaas uu dhegaystay ayuu wax yar aamusan ninkii Matthew ahay kadibna waxa uu ku yidhi gabadhaydii dhegayso hortaan kuu sheega sababta adiga mar walba aan ku celcelinayo aana doonaya inaad kontarool ku jirtid gabadha aan kugu magac dara moogtaa inay saaxiibadeedii hore ahayd marka arrinkaas waan ka masayrayaa. Goortii Sona intaas maqasho waa yaabtay waxayna tiri maxaa ka wadaa aab macaan. Kadibna aabbihi xilligaas xanaaqsanayaana wuxuu ku yidhi gabadhaydii mar dhow ayaa fahmi doontaa ee adiga iga hor dhicin. Sonia waa ay yaabtay wayna casatay islamarkiina meesha ayay ka tagtay. Sonia oo yaabanayaana qolkeeda iska adday galabtii xiga markii la gaarana oo iskuulka ka timid hooyada ayay u timid kadibna waxay bilowday inay arrinkii kala hadasho iyo weliba waxay aabba xala kala kulantay. Bonita ayaana bilowday gabadheeda inay dejiso wax walbana u sharaxdo waxayna ku tiri gabadhaydii mid aan kuu sheego horta ninkani waxa uu jeclahay gabar lagu magacaabo Sonia weliba aad buu ugu waalayn laakiin ayada ayaa ka tagtay sidaa darteed adiga ayuu magacaada kuugu daray. tan kale aniga xitaa jeceyl hadhaaf imaha ee gabadhaas ayuu aad u jeclaay hadiyo badan ayuuna u gadi jiray marka sidaa darteed ayuu adigan hadiya kuu gadayaa aan gabadhaydii kugu daray moogtahay aabbaha waxa uu ka cabsanayaa wixii isaga saaxiibadiisa ay ku samayseen adigu wiilasha kugu sameeyaan marka sidaas ayuu kuu kantaroolayaa. Laakiin gabadha ayaa hooyada ku tiri hooyo macaan runtaan kuu sheego aniga markuu imtixaankii dhammaado waxaan doonayaa guriga inaan ka baxsado oo saaxiibkii aan la baxsado. Hooyadii good intaas maqasho waa ay la yaabtay laakiin arrinka xilligaas aysan ogeyn Sona iyo weliba gabadheeda waxay ahayd in ninkii Matthew waxaasoo idil uu maqlayay kadibna wuu xanaaqay waxa uuna ku yidhi sidee gabadhayda isugu dayda inay gurigay ka baxsato weliba wiil ay la baxsato. Arrinkaasna aad buu uga carooday sidaasoo kale xilligaas waxa uu isweydiinayey wiilka ay doonaysay gabadhiisa inay la baxsato inkastoo haddana asxaabteeda uu aad u aqoon wuxuu bilaabay gabadhii ilgooni inuu ku hayo. Kadibna habeen ayay aabbaheeda u timid waxayna ka codsatay inuu aabbaheeda uu ku joojiyey kantaroolka faraha badan oo iyada ku hayo una sheegtay inay doonaysa inay si xorriyad ay u noolaato. Aabbaheedna waxay ku tiri aabbaxanimadan kor qaad. Aabbaheedna wuxuu ku yidhi aniga gabadhaydii waxa aniga xidmaada kuma saaraye laakiin waxyaabaha aad samaynaysa waa inaad joojisaa. tan kale haddii aad bilowday inaad magaalada ka baxdid la soco ama saaxiibka aad raacdid aniga gurigan ayaan kuu xiri doonaa aniga aad baan ku jeclaa gabadhaydii waa inaad fahantaa. Sonia xilligaasi aabbaheed waa ay fahantay dana waxay tiri aab macaan si kasta ay noqoto aniga waan dadaalayaa laakiin la soco adeegan faraha badan ay weysi waa inaad iga daysaa. isla markiina meesha ay uga tagtay habeennimadiina waxay la xiriirtay saaxiibkeed waxayna ku tiri saaxiib markuu imtixaanka dhammaado waan baxsanaynaa. Isagana wuu ka aqbalay sidaasoo kale walaalkeed ayay arrinka u sheegtay Danielna waa uu ku raacay. Goortii gabadha imtixaanka usoo dhammaaday gurigeeda ayay timid kadibna waxay bilowday boosada yarta alaabteeda inay ku shubato. Xilligaasna ma aysan filaynin in aabbaheeda uu guriga joogo laakiin nasiib daras aabbaheed ayaa guriga yimid kadibna markuu arkay gabadha inay isku dayaysa inay baxsato ayuu isla markiiba qabtay kadibna wuxuu u kaxeeyey dhankaasi gurigiisa oo waxaa jiray guri kale oo ka hoos dhisnaay laakiin isaga keligiisa uu maamuli jiray. gabadhii ayuuna isla markiiba hoos ugu xiray kadibna alaabteedii ayuu soo qabtay wuxuuna bilaabay inuu gubo xitaa moobilkeedii waa uu ku daray si isaga hadhow aysan wax caddayn ugu noqon. kadibna xaaskiisa ayuu bilaabay markay habeenkii guriga ay ku soo laabatay inuu weydiiyey Sonia wuxuuna ku yidhi maaragtay gabadha yartahay Sonia aniga maanta guriga umaana jeedine markay imtixaan ka soo laabatay haggee aaday. laakiin xilligaas Bonita waa ay la yaabneed waxayna bilowday gabadheedii inay wacdo nasiib darase waa ay ku guuldaraystay waxayna u sheegtay inaysan ilaa hadda aysan arkin. sidaasoo kale Matthew wuxuu bilaabay xaaskiisa inuu ku qayliyey isagoo dhahaya gabadhaadi ay daryeeli weysay maxaa gabadha ilgooni ugu weysay sidayna hadda ku maqan tahay halka ayaana ka raadinaa. xilligaas waxa uu doonayey inuu xaaskiisa uu marin habaabiyo si isaga toonka uusan u soo aadin. kadibna waxa ay tiri si kastaba haatee aniga ayaa gabadha goobaya asxaabteedana soo weydiinaya. kadibna isagiina waa uu ka aqbal waxuuna ku yidhi okay wixii aadhatay sameey aniga laakiin waxaan doonayaa gabadhaas inay ii soo celisid. kadibna Bonita aad bay arrinkaas uga murugotay waxayna bilowday gabadheedii inay raadiso. kadibna asxaabteeda ayay wacday nasiib darase dhammaantood waxay u sheegeen inaysan wax warbixina ka hayn meesha iyada ay aaday. arrinkaasna aad bay uga murugotay Bonita. dhan kale ninkii Matthew wuxuu arkay qorshihiisa si wanaagsan inuu ugu socdo arrinkaasna aad buu ugu farxay
halka maamadii subaxiga markii la gaaray iyadoo booliisku tagtay una sheegtay gabadheeda inay ka maqan tahay kadibna warbixinta ay booliisku fasaartaygana waxay u sheegeen inay la goobi doonaan sidaasoo kale miito kuma uusan harin si isaga aana looga sheekan wuxuuna bilaabay gabadhii sidaasoo kale inuu raadiyo mar walbana xaaskiisa ayuu garabkiisa ahay dhankan usoo laabana gabadhii yarta aheed meeshii hoose ayay isaga jirtay inkastoo ay isku dayda haddana meesha inay ka baxsato oo ay ku guuldaraysatay xilligaasna waxay isweydiinaysay walaalkeedii weliba hooyadu waxa ay samaynayaan balan usoo laabana sidaasoo kale ninkii Daniel ahay kaasoo gabadha yarta ee Sonia la dhashay wuxuu ogaaday dhaqamadii xumaa ee gabadha aabe uu ku naga jiray iyo weliba sida uu kontrooli jiray kadibna wuxuu xaqiiqsaday inuu aabihiis arrinkani luku leeyahay si kastaba haatee wuxuu bilaabay baaritaan inuu sameeyo halka maamadii iyadana wicitaanada aysan joojin meel walba ayayna bilaawday inay ka raadiso dhankana usoo laabano ninkii Daniel ahay maalin maalmaha ka mid ah isagoo guriga jooga ayuu bilaabay guriga idil baaritaan inuu ku sameeyo sidaasoo kale waxaa jirtay inuu ka shakisanayo dhanka hoose iyo guriga ku yaala isagoo xilliga isdhahayay ma laga yaaba gabadha inay dhankaasi hoose ku jirto kadibna waxa uu bilaabay furihii qolkaasi inuu raadiyo baaritaan badan uu raadiyey ugu dambayntii waxa uu ka soo helay dhankaasi qolka aabihiisa goortuusa furihii sidaas u soo helay ayuu isla markiiba wuxuu soo aaday dhankaasi gurigii wuxuuna xilligaasi doonayay inuu guriga fiiriyo iyo weli wax meesha ku qarsoon nasiib darasa xilligaasi guriga waxaa yimid maalinto kadibna wuxuu arkay ninkan oo furyahaya wuxuuna bilaabay wiilkiisa inuu aad ugu qayliyo isagoo ku yidhi mar dambeyaan halkaani kugu arkin gurigaasna u dhowaan laakiin Daniel arrinkaasi kuma uusan qancin arrinka ayuuna hooyadiis la sheegay isagoo xilligaasi ku yidhi hooye macaan waxaan ka shakisana guriga hoos ku yaala waxaan u malaynayaa walaashay in halkaasi lagu qariyey laakiin hooyadiis waxay ku tiri waxaas ma jiraan wiilkaygiyo Daniel marnaba isma uusan dhiibin habeenkii goortuu qolkiisa kusoo laabto wuxuu bilaabay inuu arrinkaas aad uga fekero wuxuuna xilligaa isweydiinaya qolkaasi qarsoon waxa ku jira subaxiga markii la gaaro ayuuna hooyadiis wuxuu ku yidhi hooye macaan aniga waxaan doonayaa guri saaxiibka inaan aado weliba safar ayaan geli doonaa marka intaas waa inaad socotaa hooyadiina kama aysan diidin way ka aqbasho waxayna tiri okay wiilkaygiyow laakiin arrinkaas waxaa sidaasoo kale maqlaya Mitiyona arrinkaas ma uusan farxad gelin kadibna wuxuu bilaabay arrinka inuu ka shaqeeyo laba maalin markay kasoo wareegatana Daniel waaba la waayaba hooyadii waxay isku dayday nambarkiisa inay wacdo laakiin nasiib daras uma uusan gelin oo way ku guuldaraysatay subaxigana waxay u tagtay booliiska iyadoo xilligaas u sheegtay sidaasoo kale wiilkeedii inuu maqan yahay awalna hore ugu maqnay sidaasoo kale gabadheedii booliiska ayaana xilligaas u sheegay inay baaritaan samayn doonaan sidaasoo kale Mitiyo kuma uusan harin mar walba garabkeeda ayuu xaaskeeda taagnay gabadhana la raadinayay tan kaleo xilligaasi ka seexnuu ka bineed waxay ahayd maadaama gabadhii dhankaas hoose ay ku jirto Mitiyo wuxuu bilaabay si qarsoodi inuu gurigaas u aado kadibna gabadhii uu la seexdo inna waxaan ka wadaa sida xaaskiisa oo kale inuu la dhaqmo kadibna gabadhii bilooyin kadib waxay baqaadaba uur kadibna ninkeeda maahan waxaan ka wadaa aabaheeda waxay ka codsatay inuu isaga isbitaal geeyo si xaaladda isaga soo jeen karayso laakiinse xilligaas Mitiyo waa uu ka diiday kadibna buugaag ayuu u soo iibiyey waxauna ku yidhi buugagtan waa in akhrisaa weliba aad barataa sida la isku dhaliyo Soniana maadaama halkale aysanaysan way aqbashay dhan kale maamadii Banita aad bay ugu murugaysanayd maqnaashaha labadeeda caruur sidaasoo kale ninkeeda mar walba iyada ayuu garab siinayey iyadana marna kumaysan baraarugin maqnaashaha caruurteeda ninka inuu sabab u yahay si kastaba haatee aan u soo laabanno gabadhii yarta ahayd Sonia marnaba maysan ka quusan aabaheedu waxayna bilowday inay ka codsato inuu isbitaal geeyo laakiin waa uu ku guuldaraysatay kadibna waxaa la gaaray maalinkii iyada ay dilaysay micnaha bilooyinkeeda ayaa u buuxsamay ugu dambayntii wax badan ay la hardando waxa ay dhashay wiil yaroo aad u qurux badan kadibna maalmihii xigay wiilkeeda ayay bilowday inay aad u daryeesho inkastoo haddana wax fiican ay meesha ku haysan ninkii Mitiyo isma uusan dhiibin wuxuu bilaabay inuu si cunto qarsoodi ugu soo iibiyo sidaasoo kale waxay mar kale isku dayday inay ka codsato in wiilkeeda jakab lagu sameeyo sidaasoo kale u baahan yahay waxyaabo in suuqa loogu soo iibiyo waxayna ka codsatay inuu u ogolaado inay bannaanka aado Mitiyose waa uu ka diiday xitaa wuxuu u raacsiyay haddii mar kale arrinkaas ay ku soo qaado in ayada xitaa cuntada uu ku jooji doono meeshaana ay ku dhiman doonto Soniana goorniindaasi maqasho way iska niyad jabtay laakiinse Sonia waxay ahayd qof aad u adag waxayna xilligaa isweydiinaysay aabaheedii weliba dhaqamada xun uu wado iyo weliba xitaa inuu ogolaa waayay cunugeed yarka in xitaa waxyaabo bannaanka loogu soo iibiyo waxayna bilowday gabadhii inay fikirto cunugeed yarkaana ay sidaas ula hadanto maalmuhuna sidaas ayay ku socdeen iyagoo xilligaas ku dhiibaya asbuucyadana bilooyinka isku dhiibayeen Matiyona inkastoo ogay gabadhani inay xaaladdan la daalaadhaxayso haddana kama uusan joojin sidii xaaskiisa oo kale inuu la dhaqmo bilooyin yar kadibna gabadhii mar kale uur ayay qaaday kadibna xaaladdii ayaa ku saxakarantay xilligaasna Sonia waxay isweydiinaysay sidii ula tacaali doonto cunugan kale hadda kadib imaanaya sababta waxay og tahay cunugeeda yar iyo dhibaatada ay ka martay kadibna Mitiyo ayay isku dayday inay la hadasho kana dhaadhiciso inuu ogolaado inuu isaga iyada isbitaal geeyo maadaama hadda ilmihii ay sii badanayaan laakiin isaga waa uu ka diiday waxauna yidhi taas marnaba ha ku fekerin meeshan ayaadna ku jiraysaa gabadhii maalmihii xigana
xaaladdii waa ay ku sii adkaatay. Inkastoo haddana wax walba isku dayday, waa ay ku guuldarraysatay. Mitchell ayaan hal jeer bannaanka aadi jiray, wuxuuna u soo iibin jiray daawooyin, iyadoo u sheegi jiray inay daawooyinkaani isticmaasho. Sonyana maadaama rajo kale aysan haysan, waxay bilowday amarkiisa inay iska raacdo, wax walba uu sheegana iyada ay sidaas ku waddo. Kadibna uurkeedii waa uu sii weynaaday, ilaa ugu dambayntii la gaaray 9 bilood mar kale inay u dhammaadaan. Iyadoo cunuga hore la tacaalaysa ayaa ugu dambayntiina mar kale waxaa ku soo biiray cunug kale, kaasoo ahayd gabar. Kadibna waxay bilowday gabadheedii yarta ahayd inay sidaas oo kale la tacaasho. Buugaagtii uu keenana inay aqalka sidaas ku waddo si iyada ilmaheeda u badbaadsato. Sidaas oo kale waxyaabaha yarka cuntada uu u keeni jiray ayay bilowday ilmaheeda yarka inay ku nafaqayso. Xanuunsan lamana Benita xaaladdeedu way adkaysan weysay. Kadibna waxay bilowday ninkeeda inay ka shakiso, iyadoo xilligaa isweydiinaysay ama uu ninkan sabab u yahay maqnaanshiyaha ilmaheeda. Kadibna waxay bilowday arrinkaas booliiska inay u gudbiso, iyadoo xilligaas u sheegtay inay ninkeeda ay ka shakisan tahay, sababna uu yahay maqnaanshiyaha labadeeda carruur. Booliiska ayaan isla markii ku yidhi, "Anaga ayaa baaritaan ku samaynaynaa." Kadibna booliiska ayaa bilaabay ninkani tirahaisa iyo weliba dhaqdhaqaaqiisa inay dabagal ay ku sameeyaan si ay u ogaadaan ninkan iyo weliba waxyaabaha uu sameeyo. Laakiin arrinkaasi Matthew waa uu ku baraarugay. Kadibna wuxuu bilaabay dhaqdhaqaaqii faraha badnaa inuu joojiyo. Kadibna maalin ayaa boolisku yimaadeen, waxayna bilaabeen su'aalo inay weydiiyaan iyo weliba inay wax ka weydiiyaan sidaas oo kale maqnaanshiyaha labadaas carruur. Isagana wuxuu bilaabay arrinkaas inuu iska fogeeyo, waxaana ku yidhi, "Aniga waxaan u malaynayaa arrinkan inuu lug ku leeyahay. Gabadheeda waxaa jirta wiil ay isjecel yihiin, marka wiilkaas ma soo weydiisaan." Booliiska ayaan isla markiiba waxay u tageen wiilkii Sonia ay isjeclaayeen, iyagoo xilligaas rajeynaya wax caddayn meesha ka helaan. Nasiib darrada goorta ay u tageen su'aalo inay weydiiyeen, Sonia saaxiibkeed xilligaas wuxuu u sheegay inuu iyada wax warbixin ka hayn iyo weliba meeshay ku maqan tahay. Booliiskiina arrinkaas aad bay uga niyad jabeen. Kadibna waxa ay warbixintii la soo wadaageen Benita markaan aad bay u rajo dhigtay, waxaana halkaasi ku barbartay riyadeedii ahayd inay mar kale ilmaheeda dib ula midoobi doonto. Si kastaba ha ahaatee, waqtiguna mar kale ayuu isbaray. 15 sano ayaana ka soo wareegatay. Gabadhii yartaana weli xabsiga ayay ku jirtaa. Iyadana ugu dambayntii 4 carruur ayay dhashay, oo ilmaheeda waxay noqdeen 4 carruur, waxayna bilowday ilmaheeda yarka inay la tacaasho. Maalin ayayna waxay u timid ninkii aabbaheeda, waxayna ku tiri, "Wari ay dhegayso, waad ogtahay hadda ilmihii way weynaadeen, xilligaanna waxay u baahan yihiin inay waxbarasho helaan. Marka ilmaha waa inaad u ogolaataa inaad waxbarasho geysaa." Marka ka warran arrinkaasi, Matthew arrinkaasi kuma uusan farxin. Waxa uuna ku yidhi, "Taasi macquul maahan, kumana ogolaanaya adiga iyo carruurtaada inaad gurigaani ka baxdaan, waana inay halkaasi joogtaan. Tan kale asxaanaan kuu samaynaya waxay tahay inaan buugaag ayaan kuu soo iibiyo, buugaagtaas ayaana ilmahaada wax ku baraysaa." Sonia arrinkaasi kuma aysan farxin, waxayna isku dayday ninkii inay la hadasho, laakiin waa ay ku guuldarraysatay. Isagiina meesha ayuu ka dhaqaajiyey. Kadibna wuxuu bilaabay buugaag inuu u soo gado. Buugaagta ayuu rafata ka saaray. Kadibna gabadhii waxa ay bilowday ilmaheeda yarka inay iyada wax barto, oo waxay ka cabsanaysay marka ilmihii ay koraan inay waxbarasho la'aan ay ku dhacdo. Iyada ayaana bilowday ilmaheeda si fiican inay wax u barto, ayna nafteeda u horto. Qolkii yarka ayayna ku jirtay, dadaal badan ayayna ilmihii gelisay. Ilmihiina iyagana waxay bilaabeen inay si adag wax u bartaan, inkastoo haddana xabsigaas ay ku jireen. Marnaba ismaysan dhiibin, waxbarashada ayayna sidaasi ku wadeen. Matthew sidaas oo kale ma uusan joojin. Ilmihii yarka cadaadiska uu saarayay iyo weliba sidaas oo kale gabadhiisa inuu dhaqamadii xumaay sidaas uu ku wado. Laakiinse Sonia iyada marnaba ismaysan dhiibin. Ilmaheeda ayayna la hadlantay. Sannadoodana sidaas ayay ku socdeen. Ilmaheediina sanad ka dambeeyaba waa ay sii korayeen. Iyadana waxbarashadii kama aysan joojin, inkastoo haddana mustaqbalkeeda ay ka cabsanaysa ilmahan iyo weliba meesha u dambay doontaa. Si kastaba haatee, maalin ayay mar kale waxay dib ugu soo laabatay Matthew, waxayna ku tiri, "Saaxiibii dhegayso, waxaan doonayaa, waad ogtahay hadda musqushan yarta waa nagu cariiri, marka waxaan u baahannahay in ballaarin nagula sameeyo. Ka warran arrinkaas haddaa xalliside." Laakiin Matthew xilligaas wuxuu ka cabsanaya isaga arrinkiisa inuu fasilmo. Isagana arrinkaasi gaashaanka iyo u daruuro waa uuna ka diiday. Wuxuuna xilligaasi ku yidhi, "Marnaba taas ha ku niyeysan, maskaxdan iyay ku soo dhicin. Tan kale aan kuugu daro, ogow ilmahan haddii aad wax u sheegtid, aadna isku dayid inaad meeshaan ka baxsatid, noloshaada ayaa khatar geli doontaa." Iyadana ilmaheeda ayay u naxday. Dhan kale inoo soo celi, Benita waxay bilowday ninka horta aad inay uga shakiso. Inkastoo ilmaheeda sannado badan haddana ay ka maqan yihiin, waxay go'aan ku gaartay gurigan oo inay ka tagto, maadaama hadda ilmaheedii ay weysay. Kadibna boorsooyinkii yarka ayay xidhatay, meesha ayayna ka dhaqaaqday. Waxayna ku tiri, "Matthew adiga ayaa halkaas kaaga tahay, nolol cusub ayaana raadsanayaa." Laakiin Matthew arrinkan aad buu ugu farxay. Waxa uuna xilligaasi dareemay firaaqo iyo weliba hadda kaligiis guriga inuu helay. Kadibna gabadhiisa ayuu u yimid, waxauna ku yidhi, "Mid aan kuu sheego, hooyada maanta ayay guriga ka tagtay." Kadibna waxay ku tiri, "Daniel aaway?" Isagana wuxuu xilligaasi ku yidhi, "Kaas 15 sano ka hor ayaa la waayay, mana sheegi karo meel uu aaday." Xilligaasi waa ay dareentay Sonia inuu aabbaheed wax walba u qasay. Kadibna waxa ay bilaabeen inay nolosha isaga noolaadaan.
wiilkii carruurteeda ugu weynay kaasoo ah Joseph ana wiil aad u fiican ayaa hooyadiis u yimid kadibna waxa uu ku yidhi hooyo macaan su'aal aan ku weydiiyo maxaa anaga halkaan ugu dhex jirnaa maxaa noo diiday bannaanka in aadno maxaana qaldan hooyo macaan ii sheeg dhibka jiro oo aan noogu diiday inaan bannaanka aadno maxay tahay hooyadii xilligaasi xanuun ayay dareentay wayna ka naxday wiilkeeda xilligaasi waxa uu dhacayay waxayna ku tiri wiilkaygiyow bannaanku khatar waaye xaaladiisana ma wacna marka sidaa darteed ayaa halkani ugu ilaalinayaa marka waa inaad fahantaa inkastoo Joseph xilligaasi uu dareemay inuu haddana hooyadiis ay wax ka qarinayso ma uusan doonayn wax dhiba inuu u keeno kadibna waxa uu ku yidhi okay hooyo macaan dhib ma leh laakiin ogow meeshan waa ku cidloonnay kadibna waxay ku tiri okay wiilkayu mar uun waa ka bixi doonaa marka adiga waa inaad sidaas ogaataa si kastaba haatee maalmuhu sidaas ayuu ku socday gabadha yartaana ilmaheeda ayay sidaas ula hardamaysay inkastoo haddana ay isku dayday inay gurigan ay ka baxsadaan maalin ayaa wiilkeedii Joseph waxa uu ku yidhi ka warran hooyo macaan haddii gurigan ka baxsanno kadibna waxa uu bilaabay inuu hooyadiis ka caawiyo inay albaabkii ay furaan laakiin nasiib darase way ku guuldaraysteen sababtee ugu wacneed waxay ahayd in qunful adag meesha uu saaran yahay kadibna waxay bilaabeen midi yaroo guriga uu dhex tiilay inay isticmaalaan awooddooda inay isugu geeyaan nasiib darase way ku guuldaraysteen xilligaasna calaamad ayay albaabka u yeeleen laakiin waxay ka cabsadeen in Matthew hadduu yimaado arrinkaani uu ogaado iyagana baxsadka ayay iska daayeen wayna iska fadhiisteen laakiin Matthew markii uu guriga ku soo laabtay wuxuu arkay xariiqa iyo weliba in albaabka la isku dayay in la furo kadibna Matthew arrinkaas aad buu uga carooday kadibna Sonia ayuu u yimid wuxuuna ku yidhi adii carruurtaada waxaa isku dayayseen guriga inaad ka baxsatiin ii sheegaya calaamadaas u yeelay iyadana waxay tihi cunuga yarka ayaa meesha ku ciyaarayay marka isaga ayaa calaamadaas u yeelay waxba uu qaban laakiin Matthew waa uu ka carooday arrinkaasi wuxuuna ku yidhi ma waxaad isku dayaysaa guriga inaad ka baxsatid taad horta marnaba niyeysan tan kale ogow haddii aad isku dayda guriga inaad ka baxsatid in carruurtaada aa weydoontid wuxuuna xilligaasi bilaabay gabadhii inuu aad u ciqaabo weliba ilmaha hortooda ayuu bilaabay inuu ku ciqaabo isagoo ku dhahayay tan cashir haynii noqoto ogaada mar dambe haddii aad isku daydaan guriga inaad ka baxsataan inaan hooyadiina ka takhalusi doono iyadana xilligaas waxa uu ku yidhi carruurtaada ayaan baabi'i doonaa haddii aad isku dayda mar kale guriga inaad ka baxsato gabadhii ayuuna halkaas wuxuu u ciqaabay ciqaabtii ugu darreed wuxuuna sidaas oo kale ku yidhi horta wixii maanta ka dambeeya cunto afka ma saari doontiin oo ciqaabtiina ayay taasay sababta waxaa isku daydeen guriga inaad ka baxsataan jikadii ayuuna isla markiiba qunful ka saaray si ayaga cunto u cunin maalmuhuna waa ay socdeen ilmihiina baaxuun ayay dareemeen waxayna xilligaasi bilaabeen inay hooyada caafimaad weydiistaan iyagoo dhahay hooy macaan baahayaan dareemaysaa waxaana doonaynaa wax cunno marka aabba nagal hadal laakiin aabbe xilligaasi wax cunto ma uusan siin isagoo xilligaas ciqaab uga dhigayay maadaama iyaga isku dayeen inay gurigaanay ka baxsadaan jikadii ayuuna ka xidhay wuxuuna ku yidhi taasi waa ciqaabtiinna ogaada mar kale haddii isku daydaan inaad baahi aad u wada dhima doontiin dhammaantiin iyagana rajadii ahayd baxsadka halkaas ayay ka saareen laakiin arrinka xanuunka maalinkaasi dhacay wuxuu ahay in gabadhii ilmaha ugu yareed ay baahi dartii dhulka ugu dhacdo kadibna hooyadii waxay isku dayday inay wax xalliso gabadheedana ay la tacaasho laakiin waa ay ku guuldaraysatay gabadheediina xaaladdeedii aad bay uga sii dartay hooyadii marnaba ismaysan dhiibin iyadii weliba wiilkeeda Joseph waxay isku dayeen aabbihii inay la hadlaan kuna qanciyaan gabadhan yarta inuu caaway weliba isbitaalka u geeyo maadaama iyada xaaladdeeda ay liidato laakiin Matthew arrinkaasi raashaanka ayuu u daruuray wuxuuna ku yidhi lagama yaabo gabadhaas inaan isbitaal geeyo waxaana rabaa inay meeshaan ay ku dhimato goortii Sonia intaas ay maqasho way aamini weysay waxayna ku tiri maxaa kaa qaldanaa banuuca ayaa tahay gabadhan yarka adiga ayaa dhalay maxaa sidaas ugu ciqaabaysa waan ku baryaa isbitaalka geey laakiin Matthew waa uu ka diiday wuxuuna yidhi taas marnaba niyeysan sababtoo adiga ayaa khaladkan maanta sabab u ahay anigoo ku dhahaya wiilasha raacin ayaa raacday ciqaabtiisana maanta ayaad maraysaa gabadhii yarta ee Sonia waxay dareentay qalbi jabsaayida waxayna ogaatay gabadheed yarta inay hadda iyada waxaysan u qaban karin si kastaba ahaatee gabadhii yartaheed xaaladdeedii meesha ayay ku sugnaatay ilaa ugu dambayntii gabadhii yartaheed ee meeshii ay ku geeriyootay goortay soo ogaatay Sonia inay gabadheedii geeriyootay arrinkan aad bay uga murugootay ilmihiina kale sidaasoo kale waa ay ka murugoodeen wayna aamini waayeen xaaladda ku dhacday socodkuna mar kale wuu isguray gabadhiina nolosha yarta ayay ku sii sugnaatay iyadii weliba ilmaheeda rajadeedana aad bay u burburtay inkastoo haddana isku dayday mar kale inay ka baxsato haddana waa ay ku guuldaraysatay nasiib darro Saciid ayaa markeeda la soo gaaray kadibna way xanuunsatay sariirta ayayna ku dhacday rajalaan ayayna dareentay carruurta ayaan isku dayay inay aabbahooda la hadlaan iyagoo xilligaas ay ka dalbadeen inuu hooyada isbitaal u geeyo maadaama xaaladdeeda ay liidato laakiin isaga waa uu ka diiday wuxuuna ku yidhi lagama yaabo iyada inaan isbitaal geeyo halkan ayayna joogaysaa wuxuuna bilaabay isaga daawooyin bannaanka inuu uga soo iibiyo wuxuuna ku yidhi daawooyinkan waa inaa isticmaashaa iyadiina ma aysan diidin rajo kalena ma aysan lahayn
way aqbasho waxayna bilowday daawooyinka inay sidaasi ku qaadato. Nasiib wanaagsan daawooyinkii markay sidaas u qaadatay, iyadii waa ay soo fiicnaatay, xaaladdeedana waa ay soo wacnaatay. Kadibna miidkii ayay isku dayday inay la hadasho iyadoo ku tiri, war intaan ka badan ma dulqaadan karno waan ku baryaa, noo oggolow inaan halkani ka baxno. Laakiin isaga waxa uu xilligaasi ku yidhi marnaba ha niyeysan. Ilmihiina sidaasoo kale arrinkaas aad bay uga murugoodeen, xabsiga ayayna sidaasi ku jireen, xitaa mararka qaar iyaga cunto lama sii jirin, aabbood ayaana ciqaab uga dhigi jiray. Iyadoo arrinku sidaasi ku socdo oo gabadhii yarta ee awal hore u geeriyootay ayaa gabadhii kale iyadana ay ku xigtay. Waxaa la soo korortay xaalad caafimaada, micnaha way xanuunsatay. Kadibna arrinkaas Sonia aad bay uga murugootay waxayna isku dayday ninkeeda inay la hadasho. Micnaha aabbeed ayaan ka wadaa, waxayna ku tiri saaxiibow adigu waan kuwiga qof damiir leh ayaa tahaye, waan ku baryaa gabadhan yarta tii hore sidaas ayay ku geeriyootay. Gabadhan waa inaan qaadaa isbitaalna geysaa, sababtoo aniga ma doonayo inay iga geeriyooto. Kadibna ugu dambeyntii waa ay ku qancisay, inkastoo marka hore uu diiday. Kadibna gabadhiisa ayuu isla markiiba daf soo yiri, wuxuuna u soo qaaday dhanka isbitaalka, isagoo xilligaas baabuur soo saaray. Kadibna dhakhtarka ayuu u keenay. Dhakhtarkii markuu sidaas u keenana gabadhani waa uu ka naxay, iyo weliba sida iyada u taallo. Kadibna wuxuu bilaabay gabadhii inuu la tacaalo. Sidaasoo kale wuxuu u yimid ninkii miito waxa uuna ku yidhi waxaan ku weydiinayaa gabadhani maxaa ku dhacay, maxayna sidaani ku noqotay. Isagana wuxuu u sheegay in gabadhani gabadhiisa ay dhashay, gurigana u joogto haddana sidaas darteed isbitaalka u keenay. Wuxuuna ka codsaday dhakhtarka inuu gabadha si fiican u daryeelo. Dhakhtarkiina waa uu ka aqbalay, halka gabadhii oo kale ee Sonia ahayd ee aad uga murugaysanayd gabadheeda. Xilligaasna albaabka ayay ku sugaysay, wayna u ducaynaysay inay gabadheeda mar uun ay u soo caafimaaddo. Si kastaba haatee dhakhtarkii gabadhii ayuu la sii tacaalay. Kadibna wuxuu yimid ninkii miitiga waxauna ku yidhi dhegayso, haddaad waxaad u baahan tahay gurigeeda inaad ku laabatid, berrina u soo laabo. Kadibna wuu qabalay miitiyo, gurigiisa ayuuna soo aaday, inkastoo haddana ka cabsanayay in dhakhtarka wax walba isaga gabadhaasi ay u sheegto. Subaxiga markii la gaaro ayuuna isbitaalka ku soo laabtay. Dhakhtarka ayaana xilligaasi ku yidhi aaway gabadha hooyadeeda. Kadibna waxa uu ku yidhi iyadoo hadda meel fog ayay jirtaa, marka waa inaad arrinkaas la socotaa. Kadibna dhakhtarka ayaa waxa uu ku yidhi okay, hadda gabadhii waa ay fiicnaatay, waana la soo kulmi kartaa. Tan kale gabadhu waxay u baahan tahay in muddo inay isbitaalka sii joogto. Kadibna isaga waa uu ka aqbalay, laakiin xilligaas intuusan bixin ayuu gabadhii u yimid, waxauna ku yidhi dhegayso, haddii arrinkan aad la wadaagtid dhakhtarka, ogow hooyada ayaan ka takhalusi doonaa oo mar dambe ilma saari doontid, waxna dadkan ha u sheegin. Iyadiina kama aysan diidin, isla markiiba way aqbashay, weliba aad bay u cabsatay. Isagiina waa uu soo dhaqaaqay gurigiisa ayuuna iska yimid, wuxuuna bilaabay inuu arrinka aad uga fakaro, inkastoo haddana ka cabsanayay gabadhaasi in arrinkeeda ay bannaanka soo saarto. Si kastaba haatee gabadhii yarta isbitaalka ayay ku jirtay. Kadibna kalkaalisa ayaa u timid, waxayna aragtay gabadhan iyo weliba sidii u murugaysan tahay. Dhinaceeda ayayna soo fadhiistay, waxayna tiri gabadheydii sidee ayaa xanuunkani ku heshay, maxaa kugu dhacay, maxaana aad ugu murugaysan tahay. Marka hore gabadhii yarta way cabsatay, laakiin kalkaalisa ayaa ku tiri gabadheydii cabsan aniga ayaa garabkaada, waxna kuma soo gaarayaan, meel seef ayaana joogtaa, ii sheeg wax dhiba maa jira. Kadibna gabadhii waxay bilowday markaas inay hadasho, sirteedii ayayna u sheegtay, iyo weliba hooyadeeda meesha aabeeda ku xabisay, iyo meesha ilmaheeda ay ku jiraan, iyo weliba gabadhii yarta iyada ee xanuunka darteed u geeriyootay. Goortaysa kalkaalisa intaasi maqasho waa ay naxday, bannaanka ayuu soo baxday islamarkiina booliska ayay arrinka u wargelisay. Booliskiisa goortay maqleen islamarkiiba isbitaalka ay soo gaareen. Sidaasoo kale ninkii miitiga isbitaalka ayuu yimid si uu u ogaado gabadhiisa iyo xaaladiisa inay tahay. Laakiin nasiib darrose booliska ayaa islamarkiiba qabtay, waa uuna yaab wuxuuna isweydiinayay sababta boolisku xidhayaan. Laakiin isaga wax walba waxaa lagu eedeeyey gabadhii si xun ula dhaqmay. Sidaasoo kale booliska ayaa islamarkii dhaqaaqay, kuwaasna waxay u aadeen gurigii miitiyo. Kadibna qolkii loo tilmaamay ayay bilaabeen inay qufulka ka jibiyaan, gudaha ayayna u galeen. Ugu dambeyntiina halkaasi waxay ka soo saareen Sonia iyo weliba ilmaheeda oo xaaladdeeda caafimaad aad u liidata. Kadibna waxay ku xareeyeen ambalaas dhanka isbitaalka ayayna ula carareen. Dhankana u soo laabanno, ninkii miitiyo ee xabsiga ayaa loo taxaabay. Kadibna bilooyin kadib ninkii waxba la saaro maxkamada, isagoo xilligaas isugu eedeeyey inuu gabadhii si xun ula dhaqmo weliba xabsi u geliyey. Isagiina xilligaas waxaa lagu xukumay xabsi daa'ina oo weliba aan racfaan lahayn, isagana sidaas ayuu xabsiga ku galay. Dhan kale Sonia iyo weliba carruurteediina waxay ka soo laabteen dhankaas isbitaalka. Ugu dambeyntiina waxay dhadhamiyeen nacawda qabow iyo weliba xorriyaddii inay mar kale dib u heleen. Sidaasoo kale wiilka ayada jeclaay, inkastoo haddana nin weyn u noqday, iyadana xitaa ay weynaatay, mar kale ayay dib u midoobeen oo xitaa aroos kale ayay dhigteen. Halkaas ayayna nolosheedii mar kale dib uga ambaqaaday. asxaabii sheekadana halkaas ayay ku soo dhammaatay. Haddaba ayna weydiiyey cashirka nooce ayaan kaga baxay sheekadani. fikirkiina commentiga nagula wadaaga, muuqaalka like saar, channelka subscribe do. sidaas iyo amaana Allah, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.